waxaan hadda kambaniga ku jiraa sanad iyo 20 beri baan jeclahay bishii afraad baan soo galay sanadkii hore run ahaantii markaan soo galayayna social media baan ka arkay waxaana daawaday video walaasheen Aisha ee ka hadlayso soo markiiba waxaa amigareeyay inaan magaranaysa Facebook markaa kala hadlo wuxuu noqday walaalkay Cismaan oo maanta leaderkayga ah run ahaantii caqabad markaas halkaasaan ka ambaqaaday walaalkay wuu diiwaan geliyay labadiisii markiiba waan iibiyay run ahaantii markaas qofku markuu cusub yahay warwar badan baa imanaya markuu ku cusub yahay wixii caqabadaha markaas haystay waxay ahaayeen sida ma garanaysa alaabtiya ka iibsanaya laguma yaqaano mana ahayn runtii qof asxaab badan oo dad badan ku xiranna ma ihi ama asxaab oo caadiyana ma aan lahayn dadka ka xiran ma sha Allah leader aad baad maasan tahay qaybta caqabadaha waan soo noqon doonaa biidnillaahi kariim laakiin maalintii ugu horeysay markii aad warbixinta qaadatay iyo bilowgaagii waqti intee lag bay kugu qaadatay inaad isdiiwaangeliso shirkadda aad ka mid noqoto bal iyada imsa maalmood bay kugu qaadatay walaal bishii afraad 12keedii baan kula soo xiriiray qaybta WhatsApp-ka sax waxaad ii soo dirtay cod baad ii soo dirtay run ahaantii codkii ma aana dhageysan waad isoo wacday markaa waxaad tiri cod baan kuu soo diriyay codkaa dhageyso codkii ma aana dhageysan xogaa waa mashquulay waayo aniga go'aankayga isla markiiba fiidiyoogii hore Aisha baan go'aan ku gaaray oo ahaa Aisha maxay ku dheertay waa su'aasha isweydiiyay waxay ahayd ma sha Allah markaa arkay Aisha inay hooyo tahay ee awooddo inay harkaa gaarto maxay Aisha kaaga duwan tahay okay waxaan markaa meesha ii soo baxday Aisha inay ma garanaysa iyadu maskaxdeedii ay ka shaqaysay ee wax kale iigaga duwaneen aqoon kale oo markaa kambaniga u leedahay inay jirin marka adiga su'aalo badan kuma aana weydiin waxaan ku maaragtay waxaan rabaa waan ku qanacsanahay sidee isku diiwaan geliyaa marka kama aana fakirin lacagtu intay tahay macaan ma ogeyn marka isdiiwaan gelinay waxaan maray qaybta dabayba marka hore iga diiwaan gelisay markii dambe waxaan ku yiri qaybta Jarmalkaan u baahnaa inaan businesskayga ka sameeyo waa run wadanka Jarmalkana aad ugu adag yahay qaybta businesska markii laga sameynayo marka businesskii waxa noqotay in sharcigu xoogaa oo caqabad iiga iyo marka sharcigu iga xareesnaa corona na jiray walaalkay Cismaan baa ku soo noqday waxaan ku yiri Cismaan oo ma sugi kare walaalo odagayga passportkiisa ma ku bixin karaa ma ku diiwaan gelin karaa marka hadda anigu waxaan u haystay passport in markaas la gelin karo walaalkay wuxuu yiri haduu isagu galo isagu un baa shaqeynaya sax waxay noqotay markaa maalin baan ka maqnaa adigu qoladii baa habeenkii la hadlo matches u diray aroortii bay arkeen aroortii bay markaa waxay igu soo direen lambarka la iga rabay markaas oo passportka in passportkaygu oo la laakiin meeshii baan la tagi karay waan imi markaa waa ku soo wacay sidii baad ma garanaysaa waxaad ii soo dirtay linkiga iyo ID-ga ana isdiiwaan geliyay dalabkii baa markaa ila sameysay oo sunkayga la sameysay ma sha Allah sidaasaan hawsha markaas ku bilownay waxaan isdhihi karaa ma dhamayn 5 beri ma sha Allah marka 5 maalmood gudaheed ayaa waxa weeyaan hawshaadii ugu horeyn markii oo isdiiwaan gelisay 5 maalmood gudaheedna hawshaadii way kugu dhamaystirantay ما شاء الله تبارك الله الحمد لله كدب maxaa xigay kadib waxa xigay in aan barto afarta cc qaanuunka ay leedahay iyo systemka ay leedahay goorma ahayd waqtigaas waxaan bartay bishii shanaada afarta cc waan sameeyay bishii shanaada sameeyay farad waan soo galay oo dabaaqadeedii bay kala barkeedii bay ahayd bishii afaraad gudaheedina waxaa jirta 2 gabdhood aan diiwaan geliyay markaas may shanaad iyo waxaan diiwaan geliyay iyo afaraad aan diiwaan hal gabar baan diiwaan geliyay Ingiriiska joogta oo hadda aan shaqeyn iyo waxaan diiwaan geliyay gabar hadda bilowday bishii shanaad ku xigta 4 cc aan ka sameeyay 4 cc markaan ugu lacagteedan ku gadanayay dad teamku ma ana sameeynin teamka waxaan ka sameeyay wadanka dibadiisa ka sameeyay
ها صح marka adiga teamkaagu isla markiiba waxa uu qaaradii aad joogtay oo dhaafay waxaan uu aaday yani wadano kale ayuu aaday wadanadii ugu horeeyay ganacsiga marka uu ku faafay wadanadee kamid ahaa yani marka halka hadaan yara jircino walaalaheen ganacsigeena waa laba qaybood walaalayaal qayb waa productiga oo alaabta in maalin walba iibino ee aynu faa'iidada ka soo saarnay lacagta kaashka ka helno weeyaan qaybna waxa weeyaan waa dadka aynu caawinayno ee teamkeena ah ee kala jooga meelo kala duwan jooga marka dadka teamkaagana waa dad yani ganacsigaagiiba ayaynu ku tilmaami karnaa because waa dadka ay shirkadu kugu siinayso reward ama se abaalgud ay kugu siinayso weeyaan maasha Allah tabarakallah marka walaasheen halkeedu aaday ganacsigeedu markii ay ka bilowday wadanka Germany haye walaal halkeedu aaday wadankii ugu horeeyay uu aaday ama se teamka ugu horeeyay ka samaysay halkeedu ahaa Ingiriisku ahaa maasha Allah Ingiriiskan ka sameeyay bishii shanaadna waxaan ka sameeyay Jarmalka maasha Allah maasha Allah isla bishii ku xigtana waxaad ka samaysay oo teamkaaga ku xiga waxay noqdeen Germany waaya maasha Allah ibo walaalo waa sax ibo walaalo dadka badankooga in badan oo kamid ah markay ganacsiga bilaabayaan waxay yiraahdaan caqabad ayaa xagga familiga naga haysata marka adiga caqabad xagga familiga oo bilowgii horeba ka qabsatay ma jirtay ha haye maxay ahayd caqabadaas waxay ahayd walaalo markaan ku leeyahay walaasheen videogeena aan daawaday go'aan baan anigu gaaray qofka ugu horeysa aan la shirgareeyay xaajigaygu ahaa wuxuu yiri wax ma shaqaynayaan waa tuug waa wax ma aragtay waxaan dadka lagu dhacaa haye run ahaantii waxaan idhi waan samaynayaa baan idhi haye go'aankaygii baan qaatay sidii baa businesska ku bilaabay bishii shanaad markay ahayd haye waxay noqotay inaa aniga odagii haddana ila odagii wixii uu khalaafsan yahay moqt haye aniga odagii iska hor nimaadno haye oo isku dhac nagu yimaado dee waxaan idhi forever iyo adigu hadday noqoto baan idhi marka laba soo gal buu yidhi ama forever ama dee anuusaan kuma jiri kara naag intaa niman iyo ma garanaysaa la hadlaysaa dumar iyo hawlo ma fahamte haye yani haye marka dee xoogaa ninku markuu gabadh markay rag la hadlayso xoogaa dhinacda isagoo wixiina ku qanacsaneen haddana maseer iyo waxbaa iska imanaya moogta warun marka waxaa dhacday inaa labadaa laysoo taago ani forifa iyo dee reerkaagii ay ku iyo noqoto heerkaagii haye haye adag weeyaan go'aanka waxaan qaatay inaan forever qaato haye ana cidna wallaahi ilaahay unbaa igu og haye sababtaa u qaatayna waxay ahayd weligay noloshayda micnaha go'aanka dadka ku degdega ma ihi laakiin walaashay Caaisha si maaragtay waxay ii saamaysay qayra xad ahayn waana raadin jiray anigu qofku markuu businesska uu aad u jecel yahay waxyaalo raadiyo laakiin iskugu toosin shirkado kale waa isku dayay laakiin ma aana gelin lugaha ma gelin haye leefa ku jirtay oo kale aan isku dayay inaan galo aan la gelin haye company kale hadda magaciisa maqan yahay oo dhinaca Norway laga leeyahay baa jira isagana marka waan jeclaa waxaan ina businesskan iyo waxyaalahan waan jeclaa صح wana waxyaalaha Soomaalida ay sameeyaan waan jeclaa haye intii markaa 3 bishii afaraad intaan ku jiray waxaan raadinayay company-ga Jarmalkan ku raadinayay luqadda Jarmalkan ku raadinayay iyo maaragtay sidoo guulaha iyo waxyaalaha active-ka markay ahayd iyo waxaas oo dhan baaritaan baan markaa sii sameynayay alxamdulillah odag wuxuu tan mar soo jeeda iska dhaaf marka adigu markuu taageeray waxay ahayd marka assistant manager aan gaaray intii hore ciriiri baad ku waday intii hore go'aankayga baa ku waday laakiin markii oo maaragtay leela shaqaynayo oo alaabtii leela iibinayo oo isagii ka mid micnaha dee amoodid inuu isagii company ku dhex jiro laakiin aan ku dhex jirin oo dadkii ii keenayo dadkii ila soo xiriirsanay dadkii ila shaqanayo yani dhiiri gelinayo oo idahaya soco
waxa kamid ahaa iyagana family-gayga kamid ahaa oo ka soo horjeeday oo dhahay maaragtay waxaan wax shaqeynaya mala wali alaan qayb baa hadda wali ka soo horjeeda laakiin anigu ma joojinayo wala hore soo socdaa haye wallahi caqabad aad iyo aad u weyn weey markaa tahay marwo adigna aad horumarkaagii iyo mustaqbalkaagii aad meel fog ka arkayso laba daran mid dooro lagu idhaahdo wixii adigu 100% aad aaminsanayn inaad noloshaada dhan ku bedelayso adigoo maanta waxa halkan ka soo galaan marnaba meel kale la aadayn oo familigaaga iyo qoyskaaga dib ugu soo noqonayso marka ay familigaagii waliba xaajigaagii ay kaaga timaado arrin culus oo yaani kala dooro reerkaagii ama se waxa weeyaan shaqadaadii ay noqoto waa arrin aad iyo aad u culus sidee bay suuragal kuugu noqotay xaajigaagu markaa inuu aamino oo ma garanaysaa ugu dambeyn uu kula qaato walaalo walaalo horta waxa sababay oo ugu weyn waxay ahayd inuu arko lacagaha ii soo dhacaya assistant manager markaan noqday waaye supervisor markaan ahaaba lacag waan helay laakiin markaas lacagahayga ma dalban karin oo maaragtay anoo ka caajisay iyo waxyaalahaas laakiin lacagteed markii aad ku korodhay waxay ahayd markaan noqday assistant manager markaan noqday markaasuu arkay lacagahaygu inay isbedelaan oo isagii intuu shaqaynayay uu salaadii u kala hayay 10 saac uu soo shaqaynayay habeen galayay qabow galayay kuleelo xili galayay duhur galayay subax kala hayay aan anagoo maaragtay isku lacagtiina wax yar isku soo dhow yihiin wax yar boqolaal yar uu igaga sareeyo uu qaadan karay marka wuxuu dhahaa hadda ma af Soomaali baa lacagtan ku keentaa Soomaali ada gurigaaga dhex fadhiyo ma lacagta ku keentaa marka taasoo bedeshay marka wuxuu arkay wixii inay xaqiiqo yihiin laakiin ma sha Allah xaqiiqadii ayaad miiska keentay waa run haye assistant supervisor markaan ahaa lacagaha ma aana dalbanayn oo marka wax lacag oo dhan waxay ii soo dhacday marka assistant manager aan noqday lacagayro way soo dhicin qaybta Jarmalka laakiin lacago maaragtay aad qofkii u soo bandhigi karto oo dhihi karto war waa kan waxaan aan soo shaqeeyay ma sha Allah